صح ما أها شرفنا ما أها وحلو فعننا ما أها سيديت سنو عدي تقانا سعموشة يا مدام تدحدو ذا الوجرة برواقة أنا كسرنا نوض بان هيسنا عركي بان نوداي جيلي بان نوداي أنت أنا كوكنا عنا صح ما أها waxaan rabaa inaan haddaynu nahay isbeddel doon ujeeddadeennu caddahay inuu hebel madax noqdo ma aha waxaa sharaf noo ah murashaxiintu inay midaysan yihiin oo hortiinna fadhiyaan ujeeddaduna waxaa weeye in ay isbeddelkaa horseedaan innagoo isku wada duuban idinkana waxaan idiin dardaarmaynaa inay isku duubnaataan golaha baarlamaanka cusub inuu isku duubnaado inuu gacmaha ishaysto hujuumka iyo sheekada iyo cagajug laga bilaabo saacaddan waxaa leediin xasaanad ha lagu xiro ha lagu dilo ha lagu cagajugleeyo xasaanadaad leedahay xildhibaan hadda halkan fadhiyaa wuxuu lahaa isteeshinkaa la iga yeedhaya askariga isteeshinka kaaga yeedhaya laga bilaabo haddeer adaa xukuma hadduu sharciga yaqaan caalamka iyo cid walba u sheegaynaa in dadka Soomaaliyeed ee mas'uuliyiinta hadday yihiin guddiga doorashada hadday yihiin golihii isbeddelka hadday golihii badbaadada hadday yihiin xildhibaanada mas'uuliyadooda iyo ammaankooda iyo sharaftooda in la ilaaliyo cid kasta inay ilaaliso cid xoog iyo hanjabaad iyo cagajuglayn iyo tahdiid cid wax kaga qaadaysaa ma jirto cid xoog iyo qori iyo maxaan ku dhahdaa digdig dal ku haysanaysaana ma jirto dalkan waa la wada leeyahay nabad iyadoo la yahay oo walaalo la yahay baa la joogi karaa waxaa loo baahan yahay annagu aan doonaynaa dad saan oo kale ah oo bulshadu keentay halkaa inta la geeyo halkaana dhalan la dhigo in la yidhaahdo hebel warqadoo cad la siiyo qofka uu rabo uu ku qoro uu bakshadaa ku rido halkaa waxa ka soo baxa waa ku wada qancaynaa qofka intaa diiday xagguu u socdaa xagguusa ku noolaa inuusan xukumi saddexii mid baan ka qaadanayaa annagu ma doonayno waxaan doonaynaa halkii kursi hal qof sida hadda dhacday oo kale intaa marka laga tago waa mahadsantiin intaa marka laga tago Jubbaland waa magaalo nabadeed waa magaalo midnimo ma aha magaalo lagu ururiyo mucaaradka dawladda federaalka ma aha magaalo lagu casuumo mucaaradka dawladda federaalka la isugu yeero ma aha meel laga dumiyo dawladda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan waxay og yihiin in Jubbaland tahay dawlad goboleedkoodii dawladda federaalka ay tahay dawladoodii federaalka ahay intii qaribnayd cir iyo dhul iyo bad iyo kalluun iyo macdan bay iibsatay in lagu soo casuumo Kismaayo oo la yiraahdo kaaleyna la dumiyo dawladda federaalka shacabka reer Jubbaland ma yeeli doonaan waxaan uga digaynaa kooxaha faraha badan ee kala gedisan ee ku dhex jira doorashada Jubbaland ee waraaqaha qoraya ee beenta ka shaqaynaya ee dayuuradaha soo raacaya iyagoo waliba ahaa kuwii shalay duminayay aan ka kari lahayn aan gacmaha ka haynay maanta isaga dhigaya inay wax u qabanayaan maantana inay dumiyaan bay rabaan oo dab ka dhex shidaan oo khilaaf ka dhex abuuraan shacabka Jubbaland wuxuu ka shaqaynayaa midnimo wuxuu ka shaqaynayaa wanaag wuxuu ka shaqaynayaa horumar waxaan hadalkayga ku soo ururinayaa golaha baarlamaanka waxaa laydinka rabaa inaad guddoon macno la doorataan oo dhinaca kale sharciyadda marka la aado mar haddii baarlamentarian tahay shaqadu baarlamaan guddi shacabi ma maamulo saaxiibkay Axmed Aabi iyo tiimkiisu sharciga way yaqaanaan mar haddii baarlamaankii la soo xulay oo qofkii ugu da'weynaa uu fadhiistay kursiga waxay noqonayaan observer technically idinkala shaqaynaya waxaad u baahan tihiin bay idinka caawinayaan guddi doorasho oo guddoonkaad iska dhex dooranaysaan
kuwaasa guddoonka maamuli doona markaas kadibna kuwaas ama kuwa kale oo bedesheen baa madaxweynaha maamuli doona shuruudaha madaxweynaha laydinka rabaa habraaca laydinka rabaa timetable-ka laydinka rabaa idinkoo wakhtiga ilaalinaya waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo maamulkeennii hadda wakhtigiisu dhammaanayey maanta bishu waa imisa berritay kaga eg tahay oo 18 Agosto wixii ka dambeeya 15 Agosto 15 Agosto ayay kaga eg tahay maamulkeennii hore ee sii jiray wakhtigiisii intaa wixii ka dambeeya waxay ahaanayaan caretaker waxa la yidhaahdo haddaba waa caretaker macnaheedu waxa weeye waa sii hayayaal taa macnaheedu waxay tahay cid kasta kursiga ay fadhido waxay sugaysaa qofkii ka bedeli lahaa kuraasta caalamku inay cidla noqdaan laba ogola qofku marka xataa lagaa helo kursiga waad sii fadhiyaysaa markaad ka kacdo waa in qofkii kala fadhiiso waa caretaker waxa loo yaqaana ama sii hayayaal laakiin waqtigii uu ka dhammaaday mandatekii ay haysteen uu ka dhammaanayaa berrituu kaga egyahay madaxweynaha baarlamaanka mar horuu ka dhammaaday golaha wasiiraduna inta wasiirada kale loo soo dhisaya waa joogayaan sharciyan laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in shuruucda iyo sistamka dalka haddii la diiday beeshii caalamka oo la diiday dawladdii federaalka ahayd oo la diiday hay-adihii kale ee caalamiga ama IGAD ha noqoto ama African Union ha noqoto oo shacabkii Soomaaliyeed ee reer Jubbaland la diiday oo odayaashii dhaqanka la diiday oo murashaxiintii la diiday oo dadkii maxaan ku yiraahdaa bulshada la diiday xagee loo socdaa bal weydiiya xagee loo socdaa